أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وعشر كيني لحدا يلبات كتاب كيني نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عشر كينا قلبته وحو كبلابنيا مركز كتاب كسرى ayuu ka bilaabanayaa oo nabiga waxaan kusoo jirnay calayhi salaatu wasalaam inuu markii sulxul xudaybiya ay dhacday wixii ka dambeeyey oo gaaladii quraysh ay dagaaladii iyo wixii ay ku haayeen islaamkii ay joojiyeen ayaa nabiga wuxuu bilaabay calayhi salaatu wasalaam inuu warqado u diro boqorrada caalamka. kitaabu kisra haadaakani kitaabu kisra, boqorkii kisra la dhihi jiray kitaabkii warqadii nabiga uu u qoray ayaa halkan looga hadlayaa. laqabkiisa macnaha kisra la dhihi jiray waa boqorkii faris ayaa markaasi magacaas iska lahaa. wawajaha calayhi salaatu wasalaam rasuulka wuxuu diray cabdallaahi ibna xudaafata assahmiya, saxaabigaas ayuu nabiga diray bikitaabin warqad ayuu la diray ilaa kisra ayuuna ugu diray melikil fursi, dowladda furs boqorkeedii ahaa. wa fiihi warqaddaa dhexdeeda waxaa ku sugnaa bismi illaahi araxmaani iraxiim, ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa, allihii arraxmaani naxariista guud naxariista, allihii arraxiimi naxariista gaar ahaaneed naxariista. min muxamedin ayay ka socotaa rasuulillaahi, ilaahay rasuulkiisa ahaa sala allahu calayhi wasalam. ilaa kisra ayayna ku socotaa cadiimi farisin, faris madaxweynaheedii ahaa ayay ku socotaa. salaamu nabadgelyo calaa man qof dushiisa ha ahaato ittabaca alhudaa hanuunka raacay oo wa aamana billaahi ilaahay rumeeyey, wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeyey, nabadgelyo dushiisa ha ahaato waay. oo washahida qiray an laa ilaaha alla xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu ilaahay mooye, waxdahu munfaridan keligii xaal uu yahay ilaahay, laa shariika mid la wadaagsada ilaahnimada iyo xukumka uusan u sugnaanin lahu ilaahay. wa anna muxamedan nabiyullaahi muxamedna cabduhu ilaahay addoonkiisa inuu yahay qiray, iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa inuu yahay. adcuuka waxaan kuugu yeerayaa bidicaayati illaahi, ilaahay towxiidkiisa, kelimada towxiidka oo ilaahay ayaan kuugu yeerayaa. fa innii anigu rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisa ayaan ahay, ilannaasi dadka loo soo diray kaafatan xaal ay yihiin kuwa dhan, dadka oo dhana ilaahay isoo dira waa. liundira inaan u diga daraaddeeda laysoo dira man qof aan u diga kaana ahaaday xayan mid nool, oo wayaxiqa ilaahay waa sugaa alqowlu qowlka ilaahay waa sugaa calalkaafiriina gaalada dushoodu ilaahay ku sugaa waa. wayaxiqa alqowlu ilaahay qowlka oo in la cadaabo ah gaalada, wixii towxiidka diiday in la cadaabo oo gaalnimo ku dhinta, ilaahay qowlkaas cadaabka waa ku sugaa calalkaafiriina gaalada dushooda ilaahay ku sugaa waa. aslim islaam, taslam nabadgeshide, waad nabadgelaysaa islaam. fa in abeyta islaamnimada haddaad diido, fa inamaa in kala maana calayka dushaada waxaa ahaaday ithmulmajuusi, dabcaabudayaalka kuwa dabka caabuda dembigoodao dhan adiga dushaaday ahaada wa. nabiga warqadaasoo usoo diray. ninka warqadaa ay ku socotana waa melikul furs oo xilligaas dowladda ugu awooda badan caalamka ahayd waayo. ayuu nabiga warqadaa usoo diray ou leeyahay islaam waa nabadgelaysaaye, haddaad diidane micnaha wixii ku raacsan oo dhan oo dabcaabudayaalka ah dembigooda dushaada ah waay, xukumkaana siima haynayside waa lagaa qaadi doonaa. sidaasuu nabiga ku yiri calayhi salaatu wasalaam.
falamaa wasalahu lkitaabu kitaabkii warqaddii nabiga soo qoray markay soo gaartay boqorkii kisra markay soo gaartay mazaqahu waa jeexjeexay warqaddii istikbaaran isla weyni iyo kibir daraaddii ayuu warqaddii rasuulka uu soo qoray calayhi salaatu wassalaam oo loo soo dhiibay saxaabiga cabdullaahi ibni xudaafata assahmiy ayuu jeexjeexay waay. sababu daalika sheekha oo nuuruddiin alxalabi kitaabkiisa siirada wuxuu ku yidhi markuu meeshaan faahfaahin ou ka bixiyey mazaqahu istikbaaran waa jeexjeexay kibir daraaddii. sababu daalika waxaa ku kalifa sababtuna waxay ahaydaa la yidhi annahu dacaa man yaqra'uhu qof uu akhriya warqaddu u yeertay isaga nin wax akhri kara ma uusan ahayn faqara'ahu waa u akhriyey fa idaa fiihi warqadda waxaa ku sugan min muxamedin rasuulillaahi ilaa kisraa cadiimi farisi. warqadda waxay ka socotaa muxamed oo rasuulka ilaahay ah waxayna ku socotaa kisra oo faris madaxweynaheedii ah. fa aqdabahu waa carooda marka xiina bada'a rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam binafsihi markuu warqadda nabiga magaciisa oo ku bilaabay min muxamedin rasuulillaahi ilaa kisra magaca nabiga meesha lagu bilaaboba ka xanaaqayba oo wuxuu asaga rabay in asaga lagu bilaabo gaalkaas xunkaas sidaasuu rabay markaasuu ka xanaaqa arrintaas. hadda warqadna sida caadiga warqad markii la diraayo qofka diraayo ayaa warqadda macnaha isku bilaaba kabacdina qofkay ku socotaa dhinaca kale lagu qoraa waa wax iska caadiya mogta tiiyouba ka caroodaba. wasaaxa waa qayliyey wamazaqa alkitaaba warqaddii nabiga soo qorana waa jeexjeexay qabla an yaclama maa fiihi waxa warqadda ku jira oo ku qoran intuusan ogaanin ka hor ayuuba jeexjeexayba. wa amara biikhraaji xaamili daalika alkitaab warqaddaas midkii waday oo boostaalihii ahaa waa saxaabiga cabdullaahi ibni xudaafata assahmi wuxuu amray in laga saaro meesha oo laga bixiyo fa ukhrija waa la bixiyey isla markii. falamaa ra'aa daalika arrinkaa markuu arkay saxaabigii waay moogtaha cabdullaahi ibni xudaafata markuu arrinkii uu arkay sida xaaladda tahay qacadda calaa raaxilatihi daabadiisii ou ku booday oo daabaddii oo watou ku booday wasaara waana dhaqaajiyey waa socday. falamaa dahaba can kisra markay ka baaba'day suuratu qadabihi caradiisii suuraddeedii markay ka baaba'day bacatha yadlubu xaamila alkitaab falam yajidhu hallee wuxuu yidhi ninkii micnaha warqadda waday halaygugu yeero sidaasuu yidhi. hadda saxaabigiina waaba baxayba waa mar horeba dhaqaajiyaba marka waa la raadiyey lama helin markaas lama helin. walamaa balagahu calayhi salaatu wasalaam rasuulka markay soo gaartay daalika arrinkaas mushaaru ilayhiga waxaa waaye min tamziiqi kisra kitaabahu boqorkii kisra oo faris xakumaayey warqaddii nabiga oo u qoray jeexjeexiddii ou jeexjeexay warqaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay nabiga soo gaartay qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam mazaqa allaahu mulkahu boqortooyadiisa allaha jeexjeexo oo allaha burburiyo kulla mumazaqin jeexjeexid dhammaanteed allaha jeexjeexo oo allaha baabi'iyo soo u tiftifay warqaddaa oo u kitfay allaha u kitfa boqortooyadiisa allaha kala wiifiyo uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. waqad facala ilaahayna waa sameeyey habaarkii nabiga sidii uu nabiga u yidhi ayaa ilaahay sameeyey subxaanahu watacaala. maxaa yeele waa khayru khalqillaahi waa rasuul ilaahay waa dacwadiisa waa aqbal waay. fa kaanat mamlakatuhu kisra boqortooyadiisu waxay ahaatay aqraba almamaaliki boqortooyadii tan ugu dhow ayay noqotay suquudan dhicitaan ay dhacdo ee afka dhulka geliso dowladdii ugu horreysay boqortooyadii ugu horreysay oo baaba'do oo ugu dhow ayay noqoto waay. ilaaha dhulka geliyaba isla markii waa baaba'day. waqad bada'a haadaa kan wuxuu bilaabay kaasoo ashaqiya ayaan darrada ay ku dhacday waa midkaan boqortooyadii faris haystay wuxuu bilaabay bilcudwaani cololaytan inuu islaamkii la cololaytamo
rasuulka oo la cololaytamo muslimiinta oo la cololaytamo ayuu bilaabo waay fa arsala wuxuu micnaha u fariin diray licaamilihi midkii ku-xigeenkiisa ahaa oo bil yamani yaman dhexdeeda xaal uu ku sugan yahay ku-xigeenkaas magiciisa waxaa la dhihi jiraa la yidhi baadaan ayaa la dhihi jiray waxau micnaha ku-xigeen u ahaa boqorkan kisre ayuu ku-xigeen u ahaa kiiyou fariin u dira marka boqorkii kisra ayaa fariin u diraay fariina u diray oo fariintaas wuxuu ku yidhi sida markaasi sheekhan iskale kitaabka asiiratu alxalabiya ou sheegay wuxuu ku yidhi balaganii ana rajulan min qurayshin kharaja bimakata waxaa isoo gaaray uu yidhi nin reer quraysh ka mida inuu maka oo micnaha oo ka soo baxay yazcumu annahu nebiyun ninkaasoo sheeganaya inuu nabi yahay marka wuxuu yidhi fasir ilayhi wastatibhu wuxuu yidhi ninkaas u dhaqaaji oo u tag waxaad ka dalabtaa inuu ka toobo keeno nabinimada uu sheeganayo fa intaaba hadduu ka toobo keeno fal amru fadaaka arrinta waa sidii la rabay wa ilaa haddii kale fabcath ilaya bira'sihi ninkaas madaxiisa ii keena wuri bal wuxuu ku hadlaya fiiri edabdarradiisa iyo micnaha dulmigiisa iyo kibirkiisa heerkuu gaarsiisan yahay iyo micnaha meeshuu ka hadlaayo awood uusan lahayn iyo arrinousan tabar u haynin waxuusan samay karin ayuu ku hadlayaa markaasi khayru khalqilaahi uu leeyahay u tagoo micnaha u sheeg arrinkuu sheegaya nabinimada ha ka noqdo hadduusan ka noqoninna hadduu ka noqon waayena madaxiisa ii keen oo soo dil camal uu leeyahay yaktubu ilaya haada alkitaaba wahuwa cabdii ma anuu warqad iisoo qoraya asoo addoonkayga ah sidaasuu leeyahay markaa kibirka macnaha maskaxdiisa ku jirta riwaayo kale waxay sheegaysaa inuu yidhi an takfiyanii rajulan kharaja biardika yadcuunii ilaa diinihi waxaan rabaa inaa iga soo kaafiso ku-xigeenkiisuu la hadlayaa waxaan rabaa inaa iga soo kaafisa nin oo ka soo baxay carrigiina oo igu yeeraayo diinkiisa inaan qaato igu yeeraayo ninkaas iga soo kaafi wa ilaa facaltu fiika kada wa kada yatawacadhu haddaadan sidaas samaynin adagee laftigaadaan aan tilaab kaa qaadaya oo sharciya asagoo u goodinaya markaas fabcath ilayhi birajulayni jaldayni faya'tiyaanii bihi laba ninoo xoog le hore u wadow leeyahay markaasi halay keeno markaas halay keeno waxa halay keeno uu leeyahay waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka waa sidaas marka labadii nin marka ou soo diray micnaha wuxuu fabacatha baadaan bikitaabi kisra ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam warqadi kisra qoray oo nabiga u diray calayhi salaatu wasalaam maca rajulayni laba ninoo la diray ya'muruhu asagoo faraaya an yansarifa macahumaa ilaa kisra labadaas ninoo nabigu hadday u yimaadaan inuu soo raaco oo kisre soo aado boqorka kisre inuu soo aado ayuu warqadda ku faraya fakharajaa labadii nin waa baxeen falamaa qadimaa almadiinata magaaladii madiina markay galeen qaalaa lahu waxay ku yidhaahdeen micnaha melikulmuluuk oo kisre ah ayaa bacatha ila almeliki baadaan ya'muruhu an yabcatha ilayka man ya'tii bika warqaddii ay u keeneen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ku leeyihiin boqorradii boqorka oo kisre ah ayaa micnaha warqadan ku-xigeenkiisa uu kugu soo dhiibay ku-xigeenkiina anagoo noo soo dhiibay wuxuuna kaa dalbanaa inaad na soo raacdo waqad bacathanaa ilayka adoo noo soo kaa diray fa in abayta haddaad diiddo halagta waad halaagsamaysaa wa ahlagta qowmaka qoomkaadana waad halaajinaysaa wa kharrabta bilaadaka
macnaha bilaadaadina waad kharibtay haddaad sidaas samaysid oo dagaala laydinku soo qaadaya faqaala lahumaa markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi irjicaa xataa ta'tiyaanii qadan iska baxuu yidhi biri iisoo laabta waayihee bal biri iisoo laabta uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wa ataa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam alkhabar min asamaa wa ataa rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisa waxaa u yimid alkhabaru khabara wuxuu uga yimid min asamaa'i samada ayaa khabar uga yimid oo warow samada ka helay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa waxyiye hadalkaa muxuu sheegayaa bianna allaha qad sallada calaa kisraa ibnahu yaqtuluhu fii shahri kadaa fii leylati kadaa waxaa khabarka loogu soo diray ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku sallidayo wiilkiisa wiil ou dhalay boqorkaas kisra in ilaahay uu ku dirayo wiilkaasna uu dili doono bisha heblaay uu dilaayo habeen hebelna uu dilaayo ayaa loo sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyiga loogu sheegay falamaa kaana alghadu dacaahumaa markii biri la gaaray labadii nin ou nabiga u yeeray wa akhbarahumaa alkhabara warkii uu nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam warkii u sheegay oo khabarkii waxyiga ayuu nabiga u sheegay wa kataba rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa baadaan nabigana wuxuu warqad u qoray ku-xigeenkii boqorkan kisra oo baadaan ayuu warqad u qoray oo nabiga leeyahay in allaha qad wacadanii an yaqtula kisraa yowma kada ilaahay wuxuu ii ballan qaaday kisra boqorkaas xunkaa inuu ilaahay dilayo maalinta hebel falamaa ata alkitaaba kitaabkii markuu u yimid tawaqafa waa istaagay xoogaa cabsiyaa gashay wa qaala wuxuu yidhi in kaana nebiyan fa sayakuunu maa qaala wuxuu yidhi ku-xigeenkii boqorkii kisra wuxuu yidhi haddii ninkan uu nabi saxa yahay hadalka siduu u yidhi ayuu hadalka noqon doonaa faqutila kisra fi lyowmi aladii qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam calaa yaddi waladihi shiiraweyhi kisra marka waxaa la dilay maalintii nabiga uu yidhi waa la dilayaa laftigeedii ayaa la dilay wiilkiisii ou inuu dili doono ou sheegay oo magaciisa shiiraweyhi la dhihi jiray ayaana dilo waay wiilkii markuu dilay wiilkii laftigiisa warqada wuxuu u qoray ku-xigeenkii aabbihiis ku-xigeenka u ahaa baadaan ayuu warqad u qoray warqada u qoray shiiraweyhiyaa warqada qoraaye ku-xigeenka u qoraya ou leeyahay amaa bacdu faqad qataltu kisraa kisra waan dilay waa aabbihiis mogta boqorkii kisra waan dilay wiilkiyaa dhahaya walam aqtulhu ilaa qadaban lifaarisin umana dilin wax kale waxaan u dilay caro aan u caraysanahay faris oo dhan dowladda faris oo dhan fa innahu qatala ashraafahum wuxuu dilay aabbahay reer faris kuwooda sharafta leh fatafaraqa annaasu dadkiina way kala tageen fa idaa jaa'aka kitaabii haadaa warqadaydan hadday kuu timaado fakhud lii addaacata minman qibalak micnaha dadka jihadaada joogo iyo wixii adiga hoostaada joogoo dhan inay aniga ihoos yimaadaan ee addeecaan iiga keen wandur irajula alladii kaana kisraa yaktubu ilayhi fiihi falaa tuscijhu xataa ya'tiyaka amrii fiihi sidaasuu ku yidhi markaas fabacatha baadaan biislaamihi wa islaami man macahu ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ku-xigeenkii marka oo kisra arrintan mucjisada markuu arkay oo nabiga warqbixintii ou sheegay in la dili doono ninkan ka koreeya asaga oo boqorkiisa ah maalintii la dili doono iyo ninka dili doono wiilkiisa ah wixii dhan nabiga ou sheegay sidiina ay noqotay markuu wixii dhan u caddaatay baadaan wuxuu qaatay diintii islaamka u qaatay intii hoos joogta asagana way la qaadato way la qaadatay waa sida markaasi nuuruddiin alxalabi oo ku sheegay kitaabkiisa siirada ah waayahay wuxuu yidhi marka fa arsala licaamilihi bilyaman meeshaasaan marayna markaas kitaabka aan usoo laabanay
wuxuu yidhi marka waqad bada'a haadaa kan wuxuu bilaabay kaasoo ashaqiyu ayaan darada ay ku dhacday bilcudwaani cololeytan ayuu bilaabay fa arsala licaamilihi ku-xigeenkiisii u shaqaynayay ayuu warqad u diray bilyamani yaman dhexdeeda xaal uu ku sugan yahay an yuwajiha ila rasuuli rasuulka inuu micnaha dhankiisa inuu u jihaysto oo nabiga xaggiisa ou aado ayuu ugu diro wa ama an yuwajiha inuu u diro ila rasuuli rasuulka oo u diro man qof oo u diro mankaasoo ya'tii bihi nabiga la imaanaya oo keenaya ilayhi kisra u keenaya arrinkaas oo micnaha ku-xigeenkiisii oo u diray facaajalahu llahu ilaahaya wuxuu kusoo dedejiyey biqiyaami ibnihi wiilkiisii ou dhalay inuu ku kaco aabbihii shiira weyhi la dhihi jiray calayhi kisra inuu ku kaco iyo wa qatlihi dilkiisa ilaahay ku salliday lahu kisra ou dilo uma markaa kadib arsala wiilkii wuxuu diray licaamilihi ku-xigeenkiisii baadaan ahaa oo aabbihiis micnaha ku-xigeenkii u ahaa ayuu warqad u qoray fil yamani yaman dhexdeeda xaal uu ku sugan yahay ayuu warqad u qoray yanhaahu xaal uu ka reebayo micnaha ku-xigeenkaas camaa shay uu ka reebayo amara abuuhu aabbihiis hu baadaan ou amray bihi maaga ou amro wa hadalkii ou amro ahaa laba qofoo u dir oo xoog leh warqadan ugu dhiib ha ii keenaano hadalkii ahaa inuu ka joogsado ayuu markaasi ugu baaqay wa oo ugu baaqay halkaasaa marka boqortooyadiisii ay ku baaba'day qof allaale qofkii diintan ka hor yimaada ee rususha ilaahay soo dira ka hor yimaada meel wanaagsan uma dambaynaysa waay meel xun unbay arrintiisa ku gebagabaysmaysaa weligeed sida taariikhdu ahaan jirtay kitaabu lmundir ibnu sawa haadaa kani kitaabu lmundiri mundir kitaabkiisa waaye ibnu sawa wiilkiisa halkan looga hadlayaa waay ninkii la dhihi jiray mundir ibnu sawa oo nabiga uu u qoray isagana warqad nabiga uu u qoray calayhi salaatu wasalaam oo ugu baaqayo inuu diinta islaamka qaato asaguna wawajaha calayhi salaatu wasalaam rasuulka wuxuu diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray alcalaa bna alxadramiya ayuu dira waa markaas saxaabiga la yidhaha calaa ibnu alxadrami ayuu nabiga diray bikitaabin warqadou la diray ila almundir ibni sawa mundir ibnu sawa ayuuna ugu dhiiba waay malikil baxrayn boqorkoodii ahaa yadcuuhu xaal nabiga oo ugu baaqayo oo ugu yeerayo ila alislaami islaamka wa fiihi warqadda dhexdeeda waxaa ku sugan bismi illaahi araxmaani iraxiim aslim anta fa innii axmadu ilayka allaha aladii laa ilaaha illaa huwa sidaasaa ku qoran waay bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabaya allihii arraxmaani naxariista guud naxariista allihii arraxiimi naxariista gaar ahaaneed naxariista aslim islaam anta adiga fa innii aniga axmadu waxaan mahadinayaa ilayka ilaa risaalatika warqadda aan kuu soo qoray ayaan waxaan uga mahad celinayaa allaha ilaahay ayaan uga mahad celinayaa alladii ilaahaasoo laa ilaaha alla xaq lagu caabudo ousan jirin ilaa huwa asaga mooye sidaasuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam marka hadalkan ilaahan uga mahad celinaa warqadda aan kuu soo qoray oo nabiga uu sidaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam warqadda uu ku yidhi wuxuu tusinaa nin kale inuu soo islaami doono maxaa yeele marba hadduu nabiga hadalladaasoo kale ku hadlo waxaa waaye nabigu hawadiisa kama dhawaaqi jirine qofkaas waa qof rajo loo leeyahay oo soo islaamaya maxaa yeele waxaan soo marnay boqorkii xabasha najaashi markuu nabiga warqadda u qoraayay hadalkanoo kaleu nabiga kula hadlay fa innii axmadu ilayka allaaha ayaa ku jirtay ilaahan uga mahad celinayaa warqadan aan kuu soo qoray kanna sidaasuu nabigu u isticmaalay kii najaashi waatou islaamay boqorkii etoobiya waatou islaamay kanna waa kana asigana waa islaami doonaa wa waxaad ka dareemaysaa hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam mucjizaa ku dhehneed hadalkiisa waa axad ilaahay ou la shaqaynayo rabbulcaalamiin wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa hadalladiisao dhan waa waxyi loo waxyoonayo wa fa innii anigu axmadu ilayka
axmadu waan mahadinayaa ilayka ilaa risaalatika warqadda aan kuu soo qoray allaha ilaahay ayaan uga mahad celinayaa alladii ilaahaasoo laa ilaaha alla xaq lagu caabudo uusan jirin ilaa huwa asaga mooye amaa bacdu intaa kadib fa inna man sallaa salaatanaa qofkii salaadayna dukada wastaqbala qiblatanaa qibladaynana qaabila oo meeshaan qiblada aan u jeesanno u jeesta wa akala dabiixatanaa xoolaha annaga aan gowracnana haddaan muslimiin nahay cuna fadaalika kaasaa almuslimu muslim ah waay kaasaa muslim ah qofkii salaadaan dukanayn oo kala dukada qibladayna qaabila gowracayna waxaan annaga gowracna cuna hadda waxaa soo baxay moogtaa kuwa soomaali ah oo adiga luqadaadi ku hadlaaya soomaali kula ah oo haddana ku dhahaya micnaha neefaana annaga gacantayna ku gowracanin xalaalba ma ahanba oo xoolaha muslimiintan kaleoo soomaalida ay gowracayaan waxay u yaqaanaan bakti ayay u yaqaaniin bal u fiirsa balaayada meeshaan ka jirto qoladaas waxaa la yidhaha magacooda takfiir ayaa la yidhaha takfiir waa qolo aaminsan ayaga waxaan ka ahaynba inaysan muslimiin ahayn ay aaminsan yihiin ayaga cidaan ahayn waxay gowracaanna waxay ka aaminsan yihiin inay yihiin bakti ayay aaminsan yihiin waa dhibaatooyinka maanta jiro ayay ka mid tahay waddankiiya dhinac kaala joogaan soomaaliya dhinac ka degan yihiin caasimadda muqdishoay buuxaan gobolladay joogaan meel kastay joogaan waa la yaqaanaa meelo gooniyoo suuqahay leeyihin xoolaha ku gowracdaanay leeyihin caqiidadaas oo aadka u qalafsan ayay qabaan waana kanaafiiri man sallaa salaatanaa wastaqbala qiblatanaa wa akala dabiixatanaa fadalika almuslimu lahu dimmatu llaahi wa dimmatu rasuul sidaas waaye marka diintayna waa sidaas waa sida nabigayna calayhi salaatu wasalaam axaadiista uu noogu caddeeyey qofkii salaadayna dukada qibladayna qaabila gowracayna cuna waxaan gowracno fadalika almuslimu ninkaasaa muslim dhaba ah lahu waxaa u sugnaaday ou leeyahay xaq uu leeyahay dimmatullaahi ilaahay magangelyadiisa iyo wa dimmatu rasuuli rasuulka magangelyadiisa ayuu leeyahay kaasi waa in la nabadgeliyaa asaga iyo maalkiisa iyo caruurtiisa iyo ahalkiisa in la nabadgeliyaa diintu ay faraysaa waa muslim dhaba marka haddii marka adigu aad sidaas micnaha aad tiraahdo gowracayga bisaa xalaala kan muslimiinta kalena aad ku xugmiso inay bakti yihiin oo ayaga aad maaragtay aad adiga isku aaminsan tahay keliya inaad muslim dhaba tahay walaalkaana aad u aaminsan tahay ninkan kale aad u aaminsan tahay inuu gaal yahay gaalnimada adaa ku dhow markaas gaalnimada adigaa ku dhow sida axaadiista bukhaari iyo muslim ay wariyeen ay markaasi caddaynayaan qofkii micnaha man qaala liakhiihi lmuslim yaa kaafir ow yaa caduw allah faqad baa'a biha axaduhumaa in kaana kamaa qaal wa ilaa rajacat calayh qofkii qof walaalkii muslima ku yidhaahda gaal yahow ama ku yidhaahda cadowgii ilaahayow labadooda mid ayaa gaalnimada la noqonaya uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii qofkan gaalnimada uu ku riday sida ku sheegay ou yahay asaa gaal ah hadduusan gaalnimada ku riday ahal u ahaynna adigayaa gaal noqonaya markaas adigaa gaal noqonaya marka arrintaa iyadaa waa khatarteeda leedahay waa in la iska ilaaliyaa man axabba daalika tawxiidkaas iyo sifaadkaas oo islaamnimada ah qofkii jeclaada oo minal majuusi kuwan dabcaabudayaalka ka mid ah fa innahu kaasi aamin waaye waa mid aamina oo nabad galay ayuu noqonayaa markaas ay waajib tahay in naftiisa iyo maalkiisaba la iska ilaaliyo waman qofkii abaa diida fa inna calayhi dushiisa waxaa ah aljizyata islaamnimadaas qofkii iska diida oo yidhaahda kuma jiro dushiisa waxaa ah oo ku waajiba aljizyata canshuur inuu bixiyo ayaa waajib ku ah canshuur ayaa laga qaadayaa anigu diin qaada maayo hadduu yidhaahdo islaamkii muslimiintii dhexdoodana waan deganaanayaa anoo gaal ah soo maahan
haye canshuuraad dhiibay marka canshuuraad ku dhex deganaanay aad ku dhex joogaysaa sidaas waay saasay ahaa jirtay waagi islaamka oo sharaf lahaa arrintu sidaasay ahayd waay jizyada marka qur-aanku waa sheegay in gaalada canshuurtaas laga qaado markay diinta inay qaataan ay diidaan islaamkiina ay dhex degan yihiin in lacagtaas canshuurta ay bixiyaan oo saas macnaha looga qaado وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون أنا آيات كوري سيد حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون آيات سيئة هدوء مركة جزيدة مركة واسداس ومن أبا قفك الديدة فإن عليه دشي سوحة الجزية عن شور أي دشي سأهوى فأسلم هو أصدق مركة وإسلامي ومنذر ابن ساوى وإسلامي نينك ورقد النبي وصوقر عليه الصلاة والسلام وإسلامي وكتب في رد الجواب جوابتي علمتي ذي نوحو كقري أسيقوا ورقد النبي وقد جوابي وحو كقري أما بعد يا رسول الله انت اسكدب رسولك إلهي فإني أنيقو قرأت كتابك ورقد ديوان أخري على أهل البحرين داد كان بحرين دقن أو عن مدحوينها أهي أيام كدول أخري فمنهم محاكمده من قف أيا كمده قف كاسو أحب الإسلام إسلامك جعلاده أو أعجبه أو إسلامك لدعي أو عجب قلي أو دخل فيه إسلامك قلي أيا كمده ومنهم محاكمده من قفا كمده كرهه إسلامك كهدي أو أنجع ليسن وبأرضي أنيق دول كيغن وحا كسوغن مجوس كودب عابدياله إيو يهود أيا كسوغن فأحدث إلي إيسو عصبونيسي في ذلك مشار إليه محويهي في ذلك أو أي من رجال أهل البحرين بحرين رقان دقن أرين كودا وحاد إيقاسو عصبونيسيسا أمرك تلداد إيقاسو عصبونيسي أو وحان كسمين لها طلعسي سيداسو النبي يري عليه الصلاة والسلام فكتب عليه الصلاة والسلام نبي ورقد أيو أقري إليه معناها منذر أيو نبي ورقد أسوقري منذر ابن ساوى أيو نبي ورقد أسوقري عليه الصلاة والسلام نبي حكير مركة بسم الله الرحمن الرحيم أيو كب الله بالنبي من محمد رسول الله محمد أي كسعتها إله رسول كيسا إلى المنذر ابن الساوى منذر ابن ساوى أي نكسعتها سلام عليك نبي قلي دوش هذا هاتو فإني أنيق أحمد الله إلهي أيان أقم هاد علينا إليك إلى رسالتك ورقد هذا أن كوسو قري إلها أقم هاد علينا الذي إله سوء لا إله إلا حق لغو عابده موجود مثل جراء أوصان أهان إلا هو أسقمويه وأشد وحنقريا أنه شأني لا إله إلا حق لغو عابده إنه سنجر إلا الله إلهي مويه وأن محمد النبي محمد عبده إلهي أدون كيس إنه يهي ورسوله إلهي رسول كيس إنه يهي أيان قريا هو النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد أنت أسكدب فإني أنيق أذكرك وحنك حسوسنا يا الله إلهي أيانك حسوسنا يا عبسدي سواء معناها أنك حسوسنا يا عز غالب أهايا إلهي بلا عشيرة قرابة الآن وجل إلهي وينايا بلا جسم إلهي شرفه ليها مركو شرف ليها إلهي قرابة شرفكم الهاني نفس الديس وشرفه ليها إلهي سبحانه وتعالى معناها عد إلهي شرف أو كربه عدو إلهي معناها وحكا قادنايو عدو كتير سنيهي مجر توا إلهي سبحانه وتعالى independent واي أصغى إلهي سبحانه وتعالى شرف وح والبو إلهي أصغى أسوق فلان معناها واسداس وجل إلهي وينايا مركي لإرادنا بلا جسم واي إلهي وين هدي له إراده معناها جير كيسا وين لو من جيده معناها أود ديسا إيه شرفتيسا وين سداس اللو جيدا معناها مركا واسداس فإنه أي الحال والشأني من قفك ينصح نصيحه فإنما إنك لما هني ينصح لنفسه نفتيسا أي نصيحين يا وإنه أي الحال والشأني من قفك يضيع ضيعة رسولي أنيقا معناها
ergooyinka aan soo dirsada qofkii adeeco yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wayatabic amrahum arrinkii ay wateen raaca faqad xaqiiqi adaacanii anigoo adeecay waman nasaxa lahum qofkii u naseexeeya oo u khayr miira ergada aan soo dirsadane faqad nasaxa lii anigoo ii naseexeeyey oo ii khayr miiray wa ina rusulii aniga ergadaydana qad ahnow calayka way ku ammaaneen khayran wanaag ayay kugu ammaaneen iyo khayr wa inii anigoo yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam qad shafactuka waan kuugu shafeecay oo waan kuugu ergeeyey fii qowmika qoomkaada waan kuugu ergeeyey fatruk lilmuslimiina muslimiinta udaa oo uga tag maa shaygii aslamuu ay ku islaameen calayhi maaga dushiisa u dhaaf oo micnaha hadday islaameen wixii maal ay lahaayeen iyo wixii xaasas ay lahaayeen intii 4 ku siman u daay micnaha intii adiga aad madaxweyne iyo boqor u ahayd wixii soo islaamay hantidii haysteen ha ka qaadin hantidoodii sidooda ha u haystaano xaasas hadday lahaayeen xaasaskoodii ha haystaano wixii 4 ku siman 4 ka badan lama ogola ilaan diintayna 4 ka badan ma ogola 4 wixii ku siman way haysan karaan oo nikaaxooda macnaha 4 waa xalaal u yahay waa loo ogol yahay sidaasoo nabiga ku yiri calayhi salaatu wasalaam macnaha qad shafactuka fii qowmika sidaasaa loo jeedaa wacafowtu waan cafiyey yuri nabiga calayhi salaatu wasalaam can ahli dunuubi dunuubtii ahalkeedii na waan cafiyey oo macnaha kufrigii dhexdiisa wixii dembi uga dhacay waa laga cafiyey macnaha looma haysto waay oo waxaan u haysto ma lahane faqbal minhum adigana ka aqbal sidaas adiguna ka aqbal maxaa yeele qofka hadduu soo islaamo wuxuu hore u sameeyey oo dhan inaan loo haysan ilaaha qur-aanka ku sheegay oo ilaahay wuxuu leeyahay qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf waxaad u sheegtaa nabiyow kuwas micnaha gaaloobay hadday gaalnimadoodii ka joogsadaan ay ka soo laabtaan waxaad u sheegtaa yugfar lahum maa qad salafa waxay hore u kharibeen oo dhan waxay gaalnimadii ku dhex sameeyeen oo dhan waa loo dhaafayaa waa loo dhaafayaa wa innaka adiga mahmaa tasluxu inta aad wanaagsan tahay ood hagaagsan tahay falan nacsilaka kaama casilayno can camalika jagadaada aad haysato kaama casilayno wuri nabiga calayhi salaatu wasalaam adiga intaad toosan tahay oo nin shareecada ku toosan aad tahay diintii waaba qaadatay intaad shareecada ku wanaagsan tahay micnaha ku casili mayno oo kursigaadii iyo boqortooyadii aad haysatay lagama qaadayo macnaha waman qofkii aqaama ku nagaada calaa yahuudiyatihi yahuudnimadiisa ninkii ku nagaada oo majuusiyatihi ama dabcaabudidiisa isaga nagaada oo diinta islaamka qaada waaya fa calayhi dushiisa waxaa ah aljizyatu canshuur bixinayaa wa canshuur ayuu bixinayaa markaas halkaas ayuu markaasi warqadii nabiga uu u qoray mundir ibnu sawana halkaasay ku gabagabowday kitaabu malikay cumaan waddanka cumaan la yiraahdo oo hadda loo yaqaano urdun ayaa loo yaqaanaa cumaan laftigeeda waa loo yaqaan marka urdunna waa caasimadii waa kitaabu malikay cumaan labadii boqor oo ka talinaysay oo walaalaha ahayd warqadii loo qoray haadaa maxaluhu wa mabxathuhu halkaana looga hadlayaa waay wawajaha calayhi salaatu wasalaam rasuulka wuxuu diray camr bna alcaas saxaabigaa jaliilka ah ayuu nabiga diray bikitaabin warqad ayuu la diray ilaa jayfar iyo wa cabdin jayfar iyo cabdin waa laba isla dhalatay oo laba boqor ka ahayd waddankaas oo urdun cumaan ayay waxay ka ahaayeen laba boqor oo ka taliyay ahaayeen ibnay aljulanda sidaasaa loo dabdinayaa macnaha waa sida ugu saxan ibnay aljulanda macnaha ninka julanda la yiraahdo labadiisa wiil ahaayeen oo ninka julanda la yiraahdo labadan wiil dhalay oo labada boqor ka ah waddankaas urdun cumaan
ملكي عمان لبدا بقرها وفيه ورقد على حيث وحكسقنا والنبي أوقر عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجلنداء سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما سيدا الصاور قد النبي أوكو قري عليه الصلاة والسلام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلهي مقعيسا كوب الله يا الله الرحمن نحريست قود نحريست الله الرحيم نحريست قال نحريست من محمد كسعتا رسول الله إلى جيفر نينك بقر كالليرا جيفر كسعتا أي وعبد بقر كالليرا عبدي أي كسعتا ابني الجلندة جلندة لبدي سويلة سلام النبتقلي على منقف دشي ساعة اتبع الهدى هنون كالراعوان قف كهنون كالراعو نبتقلي دشي ساعة واسداس marka waa sidaas meesha cumaan la yiraahdo ay boqor ka yihiin waa arigan sham ay ka tirsantaa markaas ama bacdu intaas kadib fa inni aniga ad'uukuma waxaan idin kugu yeerayaa bidicaayati alislaami kalimada tawxiidka oo islaamka ayaan idin kugu yeerayaa aslima labadiina islaama taslama waad nabadgelaysaan nabadgeliya haddaad rabtaan islaama فإني أنا رسول الله إلهي رسول كيسان أهي إلى الناس دادك الله صدر كافة حال إيهن كودن إنسي إيه جنب أيا الله صدر لأنذر إن أدق درادد من قف أن أدق كان أهد حيا مدنول ويحق القول قولك واسقنانيا وعذابك على الكافرين قال دشود أيو كسقنانيا قولك إنه إلهي عذاب يا أهدتك قال دشود كسقنانيا وإنكما لبدين إن أقررتما هداد قرتان بالإسلام إسلام كهداد قرتان وليتكما مضح أيان إذن كاللغايا ومعناها حلك هيسين إيا كرسيقات كفردين سيدي ساقو فردين إيسان معناها الذين كقادماي وإن أبيتما هداد ديدان إسلامك أن تقرا إناد قرتان بالإسلام إسلامك إناد قرتان هداد ديدان فإن ملككما بقرتو يدين زائل ومد بابعيس ما سيجري سواي وخيلي أنيق فردهيغن تحل وحي دقيسا بساحتكما سبدين أي دقيسا ومعناها فقاريهين وحاسو دقية هلك أو مارتي مدحتو يدين كتالو وحاسو دقية فردهيغن دقال الذين كسو قادا ياوان وتظهر نبوتي نبي نبدي دا أيا سو إف بحيسا على ملككما بقرتويدين على ملككما على أرض ملككما بقرتويدين عرق دولك أي كتالو معناها عرق أي كتالو وحا كسو إف بحيسو نبي نمديد شداسو النبي كقري عليه الصلاة والسلام مركا واسداس marka saxaabigan loo soo dhiibay Amr ibn al-Aas nin aad iyo aad wuxuu ahaa macnaha geesi ah intii bini aadan geesi yahay nin ay geesinimo ku dhamaatay raganimo ay ku dhamaatay ayuu ahaa saxaabigan wuxuu yiri saxaabigan asoo ka hadlaya arrinkaas lama qadimtu Umaan markaan soo galay magaalada Umaan markaan soo galay amitu ila abdi ayaan u qasday yiri وعلى بقرة إسرائيل دلتي متك عبد الإرادة أيان قصدي وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا وحو أها لبدا لننك أقود القات كبدا أقول الضبيعات فضود أيوها وأقود ضبيعات سهلا فقلت مركز سامح عن كيري إني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي متكو صوت دري أو فرين وذيه سأيان أهي إليك أديك ليسو قادري وإلى أخيك ولالك ليسو دري بهذا الكتاب ورقد أنا ليسو دري إن إذن كانوا إذن سو قرسي
faqaala cabdun cabdi wuxuu yidhi akhii walaalkay jayfar ah huwa almuqadamu calaya bisinni waalmulki wuxuu yidhi walaalkay jayfar da ahaan iyo boqortooye ahaanba asaa iga horeeya wuri wa ana uusiluka ilayhi waxaan ku gaarsiinayaa asaan ku gaarsiinayaa xataa naqra'a kitaabaka calayhi warqadaada marka asagaan ku dul akrinaynaa huma daara baynahumaa xadiidun dawiilun sheeko dheeraa dhex marta marka intay sii socdeen min jumlati maa dakarahu lmu'alifu hunaa mu'alifka mintuu meesha ku sheegay na ka mid ah markaas sheekadaa dhex marta waayahay wuxuu yidhi marka falamaa dakhala markuu soo galay camrun camar markuu soo galay binaadiihimaa micnaha goobtoodii markuu soo galay meeshii oo golahoodii markuu soo galay labadii boqor golahoodii markuu soo galay saxaabigii camar ibnulcaas ee warqadda waday sa'alahu waxaa weydiiyey cabdubnuljulanda cabdi oo maaragtay ina julanda ah ayaa wuxuu weydiiyey camaa shaygii ayuu weydiiyey ya'muru rasuulu rasuulka oo faraayo bihi maaga oo wayanhaa nabiga ou reebaayo canhu maaga xaggiisa nabigan warqadda aada nooga wado qolada ou la joogo dadkiisa ah muxuu faraa muxuuse ka reebaa arrintaasuu weydiiyey fa qaala camar marka wuxuu yidhi ya'muru waxuu faraa bidaacati illaahi caza wajalla in ilaahay la adeeco ayuu faraa ya'muru waxuu faraa bidaacati illaahi caza wajalla ilaahay in la adeeco wayanhaa wuxuu reebaa can macsiyatihi ilaahay in la khilaafo oo hadalkiisa la diido waya'muru waxuu faraa bilbiri samafal ayuu faraa wasilati araximi qaraabada in la xiriiriya ayuu faraa wayanhaa waxuu reebaa can idulmi dulmiga waalcudwaani cololaytanka waazinaa zinada wa shurbi alkhamri khamri cabidda wa can cibaadati alxajari dhagax in la caabudo walwathani sanam in la caabudo iyo wasaliibi bahalkan laysku daldalo calaamadda ay ka sameeyeen oo nimankan yahuudda inta badan ay xirtaan oo calaamadda kirishtanka ay usoo ekaysiiyeen qoortay ku xirtaan marka waxay leeyihiin bahalkan waa kii lagu daldalay ay leeyihiin nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam waxaasay ayaga aaminsan yihiin marka kaas saliib ayaa la yidhaahdaa waa saab bahalkaas marka ayay halkan ku xira jireen kaasna nabigu wuu diidayey in macnaha la isticmaalo calaamadda kirishtanka ayay hadda kasoo sameeyeen kaas waaye marka fa qaala cabdi marka wuxuu yidhi maa axsana haadaa kan maxaa wanaag badiyey alladii kaasoo yadcuu ou ugu yeeraya dadka ilayhi ladiiga inta ka ah midkaas uu dadka ugu yeerayo alla wanaag badanaa ayuu yidhi waa walow kaana akhii walaalkay oo jayfar ah haddou ahaan lahaa yutaabicunii mid igu iraacaya la rakibnaa gaadiid ayaan u qaadan lahayn xaggiisa oo gaadiidka ayaan raaci lahayn xataa nu'mina bimuxamedin ilaa nebi moxamed aan kasoo rumayno oo wanusadiqa bihi risaaladiisa aan rumayno diintiisana aan qaadano walaakina akhii hase yeeshee walaalkay jayfar ah adannu waa mid ku bakhiilnimo badan bimulkihi boqortooyadiisa min an yadacahu inuu ka tago ayuu ku bakhiili og yahay oo wayasiira ou ahaado taabican mid raacsan ou noqdo bacda an kaana matbuucan markii asiga nin la raaca ou ahaa inuu asaga taabic u noqdo nebi moxamed ou raaco asigoo intaasoo micnaha kumanaanoo bulshaa ay daba joogto inuu taabic u noqdo qof kale arrintaas inuu ku bakhiilaan ka baqaahu yiri walaalkii uusan qaadan laakiin hadduu asaga iga aqbalo waa aadaynaa nabigaas waana ka qaadanaynaa diintiisa sidaasuu ku yidhi qaala camrun camar wuxuu yidhi marka camar ibn alcaas wuxuu yidhi saxaabiga in aslama akhuuka walaalka hadduu islaamo jayfar ah mallakahu rasuulullaahi rasuulka ilaahay micnaha wuxuu u mulki siinayaa calaa qowmihi qoomkiisa oo micnaha qoladiisii boqortooyadii uu u haayey xilkii uu u haayey sidii uu nabiga ugu dhiibaya wixiisa sidii u wadanaya macnaha fa akhada markaasoo wuxuu qaadayaa assadaqata sadaqadii zakadaa laga wadaa zakado marka wuxuu ka qaadayaa min haniyihim kooda taajirka ah oo hantida leh faraddahaa wuxuu u celinayaa calaa faqiirihim
ficilkan labadan ficilba waa siiqadooda markii la fiiriyo waa maadi laakiin macno mudaaric camal ayay wataan oo fa akhada wuxuu qaadayaa asadaqata sadaqado min haniyihim kuwooda hantida lahu ka qaadayaa faraddaha wuxuu u celinayaa calaa faqiirihim midkooda faqiirka ah waa sidaasuu ku yidhi faqaala cabdun marka cabdi wuxuu yidhi oo labadii boqor mid ka mid ah wuxuu yidhi inna haadaakani la khuluqun waa dabeecad xasanun ee wanaagsan arrintaasi waa khuluq aada u wanaagsan wama sadaqatu laakiin zakada maxay tahay zakadan la qaadayo aada sheegayso oo dadka hantidale laga qaadayo dadka fuqarada la siinayo ood sheegayso maxay tahay fa akhbarahu camar marka wuxuu u sheegay cabdi wuxuu u sheegay bimaa shaygii faradallaahu ilaahay uu waajib yeelay oo min asadaqaati zakooyinka ah fil amwaali maalyaalkana laga bixinayo walamaa dakara camar markuu u sheegay almawaashii xoolaha oo zakada laga dhiibayo markuu sheegay mawaashida waxaa la yidhaha xoolaha socda oo duurkooda daaqaya ayaa la yidhahdaa markaas geela iyo lo-da iyo ariga qaala markaa cabdi wuxuu yidhi yaa camru camarow yu'khadu macnaha hamzatu listifhaam ayaa meesha ka maqan yu'khadu ayu'khadu ma waxaa laga qaadayaa min sawaa'imi mawaashiina xoolahayna kuwooda soofo miyaa laga qaadayaa zako laga qaadayaa allatii xoolahaasoo tarcaa daaqda fi shajari geedaha daaqda oo wataridul miyaaha ceelasha aroorta miyaa zako laga dhiibaya qaala camar wuxuu yidhi nacam haa waa laga dhiibaya faqaala cabdun markii wuxuu yidhi cabdi wallaahi yaan ku dhaartee maa araa qowmii qowmkayga ma malaynayo oo uma arko calaa bucdi daarihim oo wuxuu macnaha calaa bucdi daarihim maca bucdi daarihim ayagoo deegaanadooda fogaanteedana ay jirto iyo wa kathrati cadadihim tirabadidooda aan ogahay yudiicuuna rasuulka inay ku adeecayaan uma arko bihaada kan oo kan muxuu yahay mushaarulehiga min amri zakaati zakada amarkeeda inay taas aqbalayaan u malayn maayo yidhi macnaha uma ina cabdan markaas kadib uma intaas kadib markay intaasoo hadala isdhaafsadeen ina cabdan boqorkii cabdi awsala camran camar wuxuu gaarsiiyey liakhiihi walaalkiis jayfar ah ayuu gaarsiiyey oo wuxuu yidhi walaalkay waa kanaa waa u keenyey wuxuu yidhi waa kanaa la hadal labadooduba xilay meesha ka hayaan waa laba boqor laakiin midkan jayfara ayaa xoogaa da ahaana ka weyn jagada xaggeedana macnaha asagaa macnaha wax yar oo ku xushmeeya uga horeeya marka waa sidaas waxaa la yidhi marka camar wuxuu yidhi markuu yimid oo u keenay wuxuu yidhi camar wuxuu yidhi makahtu bibaabihi ayaaman maalmo ayaan waxaan ku nagaaday albaabkiisa waa midkan jayfar wa huwa yasilu ilaa akhiihi fa yukhbiruhu khabarii asagana walaalkiisuu u tagaa warkayga u sheegaa in laysoo diray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam isoo diray warqad aan wado ayuu u sheegayaa uma inahu dacaanii yowman liadkhula macahu calaa akhiihi maalinoo marka ii yeeray uu yidhi si aan ula galo walaalkiis fa dakhaltu calayhi waan u soo galay fa akhada acwaanuhu bidabcii macnaha kuwa ciidankiisa ayaa waxay qabteen halkaas oo jintayda ah meeshaasay iga qabteen oo dheh macnaha cadudka waxaa la yidhaha halkaas ayay qabteen fa qaala markaasu wuxuu yidhi dacuuhu isaga taga fa dahabtu waan tegay uu yidhi liajlisa inaan fadhiisto fa abow waxay diideen an yadacuunii inay iga tagaan ajlisu aan fadhiistay calaa caadati muluuki alcajam sida boqorada cajamka caadadooda ahayd fii anna rasuula shaksin walow malikan laa yajlisu cinda almelik sida caadada macnaha boqorada cajamka waxay ahayd qof ergey oo soo dirsaday boqorba ha ahaadee ma fadhiisto boqorka agtiisa fa nadartu ilayhi waan fiiriyo wy fa qaala markaasu wuxuu ugu yidhi takalam bixaajatika dantaada ka hadal aad u timid fa dafactu ilayhi lkitaaba warqadiyaan u dhiibay uu yidhi makhtuuman idoo bakshadaysan oo bakshadii ku jirto oo shaabadaysan ayaan u dhiibay fa fadda khatmahu inaha warqadii ayuu furay
faqara'ahu markaasuu akhriyey xata intahaa ilaa aakhiri ilaa sadarkii ugu dambeeyey ou ka dhameeyey uma dafacahu ilaa akhiihi walaalkiisa cabdii u dhiibay faqara'ahu asagana waa akhriyey midla qiraa'atihi walaalkii sida uu akhriyo kale ilaa anii ra'aytu akhaafu araqa minhu ilaa anii ra'aytu akhaahu araqa minhu laakiin wuxuu yidhi waxaan ka dareemay walaalkiis waxaan arkay inuu ka dabacsan yahay halka macnaha cabdi markuu akhriyey xoogaa dabac zaa'idaa ka muuqday oo inuu ku saamoobo warqadda faqaala jayfar wuxuu yidhi alaa tukhbirunii miyaadan ii sheegayn can qurayshin quraysh kayfa sidii sanacad ay samaysay faqultu waxaan idhi ou yidhi quraysh ayuu ka waraystay oo yidhi ninkan rasuulkan siday u raaceen risaaladan oo ilaahay xaggeeda uu ka keenase ma ka aqbaleen oo ma ka dhegaysteen faqultu markaasa waxaan idhi ou yidhi saxaabiga camr ibnu alcaas tabicuuhu nabiga way raaceen imaa raaqibun fi ddiin mid diinkii jeclaaday oo galay wa imaa maqhuurun bisayf iyo mid sayf lagu qasbay oo ay qasab kusoo gala diinta ayay u kala baxeen qaala markaasu wuxuu yidhi jayfar wuxuu yidhi waman macahu yaa la socda oo raacay qultu waxaan idhi ou yidhi annaasu dadka qad raqibuu fi lislaami islaamka way jeclaadeen wakhtaaruuhu wayna doorteen calaa gayrihi wixii kaleo dhanay ka doorteen wa carafuu waxayna ku garteen bicuquulihim caqligooda waxay ku garteen maca hadiyillaahi ilaahay hadyigiisa waxay ku garteen annahum kaanuu fii dalaalin inay baadi ku sugnaayeen markii dambena diintay qaateen famaa aclamu axadan qof ma ogi baqiya haray gayraka oo adiga aan ahayn fii hadihi alxarija oo dhibkan ku dhex jira macnaha fii hadihi alxarija wuxuu u jeedaa wahiya ashajaru lmultaf geedahan isku dhafan geedaha oo saas isku haysta oo isku dhafan ayaa waxaa la yidhaahdaa xarija dadka meeshan geedaha badanoo isku dhafan degan qof ku haray oo diintii dadku waa wada qaateene adiga unbaa haray uu yidhi oo meeshaan degan dadka kala dhan diinta way qaateen wa in lam tuslim alyawma maanta haddaadan islaamin oodan diinta qaadan oo watattabichu aadan raacin yudi'uka alkhayla macnaha wuxuu leeyahay haddii aadan qaadan fardaha ayaa halkan kugu soo istaagaya fardihii ayaa kuu imaanay macnaha fardihii dagaalka ayaa lagugu soo qaadaya sidaasuu leeyahay wayabiidu khadraa'uka jamaacada meesha ku haysatane waa halaagsamaysaa fa aslim taslam islaam waad nabadgelaysaa wayastacmiluka calaa qowmika islaam waa nabadgelaysaa wayastacmiluka calaa qowmik qoomkaadana micnaha oo kuu isticmaalaya fatabqa calaa mulkika maca alislaam boqortooyadaadii ayaad haysanaysaa dadkaadii sidaad shala madax uga ahayd ayaa madax uga noqonaysaa mulkigaadii boqortooyadeedana waa ku baaqi noqonaysaa adoo muslim ah walaa tadkhulu calayka alkhaylu waalrijaal fardo iyo rag lagugu soo fasaxaayo oo dagaal kugu soo qaadayana ma jiraan wa fii haadaa maca sacaadati daarayni raaxatun min alqitaal wuxuu yidhi labada daarna waad ku liibaanaysaa uu yidhi dagaalkiina waad ka raysanaysaa oo dagaalna lagugu soo qaadi maayo sheekha marka la yidhaha daxlaani raximahu llahu tacaala ayaa wuxuu leeyahay wa fii haadaa daliilun calaa quwati nafsi camri radia allahu canhu wa shiddati shakiimatihi xayثu khaadabahu bihada alkhidaab wa andarahu bilxarbi walhalaaki fii maxalli mulkihi hadalka iyo micnaha sida uu ula hadlay saxaabigan camr bnu alcaas ewelaan soo sheegnay inuu nin geesi ahaaye waxaa ku sugan daliil ay u tahay sida ninkan awoodda iyo geesinimada uu leeyahay iyo qalbi adeegiisa wadna adeegiisa iyo geesinimadiisa macnaha dhiiranaantiisa sida uu ula hadlay nin boqor ah oo ciidankiisa ay ku hareereysan yihiin asigoo keligiis ah ayuu sidaa ula hadlay uu leeyahay waxaad ku nabadgeli kartaa inaad diintan qaadato haddaadan qaadanin waa xilkan waa lagaa xayuubinayaa waa lagu soo weerarayaa cariga waa lagaa qabsanayaa kana lagugu samaynayaa isma dhahaya hal mar amaa lagu dilaa isma dhahayo geesinimada macnaha iimaanka ayaa qalbigiisa macnaha ku weyn markaasu wuxuu ugu digay dagaal iyo halaag ayuu ugu digay asigoo markaasi
boqortooyadiisi dhex taagan oo ciidankiisina ay ku hareereysan yihiin maca annahu waaqifun bayna yadayhi lam yatamakan min aljuluus asagoo weliba meesha taagan oo xataa aan la fariisin oo aan fadhin ayuu sidaa u hadlayaa markaas wa maca dalika xama allaahu rasuula nabiyihi sala allahu calayhi wasalam sidaas idoo ay jirto ilaahay wuxuu dhowray nabigiisa rasuulkii uu soo dirsaday ilaahay waa dhowray sala allahu calayhi wasalam macnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkii uu soo dirsado camr bnu alcaasa loo wadaa oo fariin wadihii ah ayaa rasuulka loo wadaa ilaahay waa dhowra waay falam yu'dihi jayfar walaa bikelima jayfar ma uusan dhibin hal eray oo dhibsada xataa ma uusan dhihin bal khaadabahu billiin si jilicsanooba kula hadlaba xaysu qaala markuu yidhi dacnii yowmii haada warjic ilaya qadan maanta niyahow idhaafuu yidhi birina iisoo laabo arrintaada wax baan ka qabanayaaye maanta jaanis isii biri iisoo laabo saasuu ku yidhi qaala camrun wuxuu yidhi farajactu ilaa akhiihi walaalkiisaan u laabtay faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa camrun innii arjuu an yuslima akhii in lam yadanna bimulkihi ani waxaan rajayhaa walaalkay inuu islaamo hadduusan mulkigiisa ku bakhiilin maalintii biri markii la gaaray waanu imidou yidhi wuxuu diiday inuu ii idmo inaan u soo galo walaalkiisaan u laabtay arrintiiyaan u sheegay kabacdi labadoodaa soo tashteen markay soo tashteenna ayagiioo markaa islaamkii diyaar u ah ayay u yimaadeen waa markaas oo diintii inay galaan diyaar u ah ayay u yimaadeen marka waa rumeeyeen diintii ayay qaateen way islaameen markay islaameenna kabacdi zakadii oo laga rabay ayay yidhaahdeen zakadii waa tanaa maalkii wixii ka go-aaya adigaa yaqaanee ka bixi ayay yidhaahdeen waa markaas sidaasay marka diintii ay ku qaateen ayagiina markaas sidaasay ku qaateen kitaabu hawdata ibnu caliyin halkaasay qisadoodu ku dhammaatay haadaa kani kitaabu hawdata ibnu caliyin hawda ibnu caliyin warqadii loo qoray haadaa maxaluhu ayaa halkan looga hadlayaa qaybtan yar ayaan ku khatimaynaa insha allah wawajaha calayhi salaatu wasalaam rasuulka wuxuu u diray saliid bna camrin alcaamiriya saxaabiga la yidhaha saliid ibnu camrin alcaamiriy wuxuu nabiga u diray bikitaabin warqad ayuu la diray ilaa hawdata ibni caliyin hawda ibni caliyin oo melikil yamaamati yamaamo boqorkeedii ahaa ayuu u dira wa yamaamada maanta waa meeshaan la yidhaha ariyaad riyaad ayaa yamaamo markii hore loo yaqiino wa wa fiihi warqaddaa waxaa ku sugnaa bismi illaahi araxmaani iraxiim min muxamedin rasuulillaahi ayay ka socotaa ilaa hawdata ayay u socotaa macnaha hawdata ibni caliyin salaamu nabadgelya calaa man itabaca alhudaa qofkii hanuunka raaca dushiisa ha ahaato waclam ogaaw anna diinii diinkayga sayadharu inuu muuqan doono oo ka soo daahiri doono ilaa muntaha alkhuffi walxaafiri cagta geela iyo fardaha qoobkooda meeshay ku dhammaadaan ayay diinteyda gaari doontaa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fa aslim islaam taslam nabadgeshide wa ajcalu laka waxaan kuu yeelayaa maa taxta yadayka labada gacan waxa aad ku haysato ayaan kuu dhiibayaa oo micnaha boqortinimadaadii iyo hawshaadii waa wadanaysaa sidaasuu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mid inkaar qabaa waaye laakiin oo islaamnimo aysan u qornayn ayaan darre ay ku dhacday oo halaagsami doona maxaa yeele nabigu wuxuu dhihi doonaa nabinimada iyo talada noo qaybi oo qaybiga sii oo aan jagada nabinimada aanba kula wadaago saasuu dhihi doonaa oo meeshuu ku halaagsamaya markaas falamaa jaa'ahu lkitaabu warqaddii markay u timid kataba fii raddihi jawaabkii wuxuu ku qoray maa axsana maa shay maxaa wanaag badiyey tadcuu mafcuulkiyaa xadfan tadcuunii ilayhi waa sidaas aada iigu yeerayso waxa aada iigu yeeraysa wanaag badanah u yidhi wa ajmalahu maxaa qurux badiyey aad bay u fiican tahay wa ana aniga shaaciru qowmii qoladayda gabayaaygooda waa aniga shaacirkooda waa aniga wa khadiibuhum midkooda afyahanka ah
oo micnaha afhayeenka ah oo ugu afmiinshaarsanna waa aniga walcarabu carabna tahaabu makaanii aniga booskayga iyo darajada aan ku dhex leeyahay way ka heebaysataa fajcal lii marka waxaad ii yeeshaa bacda alamri talada aad hayso nabinimadaada hawshan aad hayso qaar aniga iga sii attabicka markaasaan ku raacayaa sidaasuu yidhi talada nabinimada wax iga sii aan qaybsanno walamaa balaga daalika warqadaas iyadaa markay gaartay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay markay gaartay qaala rasuulku wuxuu yidhi low sa'alanii hadduu i weydiisan lahaa qidcatan gobol oo min al ardi dhul ah gobol dhul ah hadduu i weydiisan lahaa xataa maa facaltu ma aanan sameeyen yuri nabiga inaan u sameeyo asagana wuxuuba i weydiisanaa miya inuu shirke igula noqdo nabinimada iyo khilaafada inuu shirke igula noqdo miyuu weydiisanayaa dhul yaroo boos hadduu isi yidhaahdo oo wax yar ah xataa ma aanan siiyen yuri nabiga calayhi salaatu wasalaam baada waa halaagsamay hawda ibnu caliyin wa baada maa fii yadayhi labadiisa gacan wixii ku sugnaane way halaagsameen xilkii ou haayay iyo hawshii boqortooyadiisii wixii dhammaay way baaba-een waay falam yalbath ma nagaanin an maata inuu dhintay munsarafa arasuuli sala allahu calayhi wasalam nabiga soo noqoshadiisa soo gadoomidiisa nabiga min fatxi makata maka furashadeeda xaggeeda uu ka soo gadoomay inuu dhintay kama nagaanin jibriila nabiga wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam hawda inuu gaalnimo ku dhintay ayuu u sheega way markaasaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam amaa ina alyamaamata sayadharu biha kadaabun yatanabba'u yuqtalu bacdii fakaana kadalika allahu akbar nabigu wuxuu yidhi yamaama waxaa ka soo bixi doono mid beenaalo ah oo nabinimo sheeganaya aniga gadaashay waana la dili doonaa huu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fakaana kadalika hadalkii sidii nabiga yiriyay noqotay fadahara bihaa musaylama kasoo baxa musaylamatu lkadaab oo nabinimo sheeganaya lacanahu llah wa qutila waana la dilay sida nabiga sheegay ayay noqotay calayhi salaatu wasalaam wa kaana calayhi salaatu wasalaam rasuulka wuxuu ahaa yuwallii inuu madax ka dhigo calaa kulli qowmin qolo kasto qoladaasoo qabiluu alislaama islaamka aqbalaan wuxuu madax uga dhigi jiray kabiirahu midka ugu weyn ayuu nabiga madax uga dhigi jiray calayhi salaatu wasalaam markaasuu halkaas hawshiisa ka wadayey sidaasuu nabiga samey jiray calayhi salaatu wasalaam cashirkaynii caawa halkaas ayuu noogu egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclamu wa axkam